بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن يروا كوبنا سديسنو إن كوبت لقلنا محاضرة آخرية وهي وقت قد ما تشوفنا waxaan joognaa waqti quraan la dhameeyay oo aan bogaadinayno caruurtii iyo waalidkii ka qayb galay. ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa bacda Allah subhanahu wa ta'ala dadka mas'uuliyadda tan qaaday ee waalid iyo maamul iyo macallimiinba ee ku heelan inay dhallaankan Soomaaliyeed ee wadankan jooga ay wax baraan. marka labaad saddex eray baan odhanayaa waan isleeyahay erayba qole aad ku tidhaahdo. erayga koowaad waxaan leeyahay waalidiinta waxaan rabaa inaan xasuusiyo kobcinta iyo barbaarinta la barbaariyo ilmo muslimi waa wax janno lagu galo. aanu dareenna camalkaasi inuu yahay ama shaqadaasi shaqo ilaahay aan kula tijaaraynayno aan janno ku raadinayno. inagoo xasuusanayna nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay aakhiro aabbihii dhintay ama hooyadii dhimatay ayaa la yidhaahdaa jannada booskan aad degantay kor baa lagaaga qaaday oo meel saraad gelaysa. dabeetana waxay weydiiyaan yaa rabbi, xadiidkii abu daawuud, rabbi xaggay ka timi? aniga camalkaygii intan buu gooyey, intan baad igu siisee waxaan dambe xaggay ka yimaadeen? waa biistikfaari waladika laka baa lagu yidhaahdaa. ilmahaagii ilaahay dembi dhaafka kuu weydiinayey ayaad intan ku heshay baa la yidhaahdaa. yacni ilmaha aynu wanaagga baray ee hadhow leh allahuma kfir lii waliwaalidaya, rabbi kfir lii waliwaalidaya leh, ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in janno sare aad ku helayso. waana kii nebigu tilmaamay adduunka qofku markuu dhinto camalkiisa oo dhammi inuu dhammaanayo. dhalinyaro maydan yara aamus. waa kii nebigu tilmaamay in camalka dadka oo dhammi uu dhammaanayo. saddex shay buu nebigu soo reebay. saddexda shay ee qofka muslimkaa u soo hadhaya waxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lahu buu nebigu yidhi. wiil ama gabadh ilmo fiican oo ilaahay u soo baraya subxaanahu wa tacaala. marka waalidka waxaan leeyahay camalkiina janno ku raadsada. ilmaha aad dhashay oo adiga kaa soo go'ay oo ilmahaagiya oo aad nafaqaynaysay oo aad waxbaraysay, haddana qasdigaagu ha noqdo in ilaahay kaa abaalmariyo oo aad janno ku hesho. midhna waan ku daraya wadka oo waa maxay? tarbiyada ama kobcinta iyo barbaarinta. shayga ugu weyn ay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid a bay yidhahdaan alistimraariya walmutaabaca. joogtayn waana bini aadamka waxa ugu dhib badan. adigoo 5 casho u shaqaynaya ama 5 casho waxaan samaynaya, labadii casho qura fasaxa lahaydna marka lagu yidhaahdo kaalay, markaad bil keenta ee ta ku xigta saad wax laga yiraahdo war malcaamadana rabshadeedii baabayna waa shay maka nasanna ama tiro badan miyaa la sii soconaya. tarbiyada gebigeeduba cilmi badan maahee waa joogtayn, waa mutaabaca baa la yidhaahdaa. waa siduu qofku ugu adkaysto inuu waxaasi daba socdo. waayo wanaaggu waa in la wada yaqaano. cilmi badan wanaaggu uma baahna. wanaaggu waa inaynu maskaxaan wada garayno, ilmihiinana aynu u wada sheegno. laakiin sheegista maaha waxa mudani. waxa mudani waxa weeyaan ma joogtayn karaysaa? subax walba ma toosin karaysaa? kaa yaroo ma odhanaysaa tuko, mise 2 subax markuu kuu jiro ama intaad kiciso uu isnabo ama aad aragto isagoo daalan oo saaka weera karaynin waxaad soo dhaysa war bal saaka iska daa ama maanta ha jooga ama caynkan. tarbiyada gebigeeduba waa mutaabacayntaas.
waalidka markaasi sanad dhan isku dayay inuu ilmihiisa malcaamad keeno oo salaad keeno oo masaajidka ku xidho runtii shaqo weyn buu qabtay waanan ogay shaqada inta ugu badan in dumarku qabtaan dumarna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga dalba ajar ay waxaan ogay ragga inta badani ama inay mashquulsan tahay ama mas-uuliyad darro kaleba ay jirto anu waddankan marmar baan idiin imaadaa 4 ciyaal oo dhala hadda fadhiya dee sanadkaa hooyadoodun baa waday unoo keenayso oo celinayso sii waday oo waday markaan imaadana anugu meelahan baaban ka wadaadeeya unoo wadaad halkan muxaadaro ka akhriyo gobol hebel kaalay ayaa bishaan idinla joogana ku dhammeeya walidaalik waxaan ogahay in hooyo waliba inay la mid tahay in hooyadan gurigii kaga yimi hooyo waloo meeshan joogtaaba inay la mid tahay inay iyadu tahay unta kaxaysa ta toosisa ta dharka u gelisa ta cunada siisa ta malcaamadda geysa ta ka soo celisa ta macallinka la shirta ta iskuulka la soo shirta inay intaba tahay hooyooyinka waxaan leeyahay waa ubadkiinni iyo aakhiro ajar kaga dalba camal saalixa ka dhigto oo ilaahay janno ku weydiisataan intaa waalidkaan leeyahay macallimiintana laba eray baan odhanayaa macallimiintana waxaan odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu xadiidkaa wada taqaaneen ee bukhaari ku yaallay khayrukum buu nebigu yidhi isagoo saxaabadiisii la hadlaya waxaa idinku khayr badan ka qur'aan bartay ee dabeetana baray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waan ogahay waddanka kan nidaamka yaalla waa nidaamkan qof waliba mashquulsan yahay macallinku reer buu leeyahay carruur buu leeyahay shaquu leeyahay iskuul buu leeyahay sida dadka kale u mashquulsan yihiin buu u mashquulsan yahay waan ogahay ilmaha waddankan ka jooga inuu yahay ilmo qaab kale loo tarengareeyey oo aamus aan ku aamusayn oo fadhiisanaynin oo loo taagelaynin macallinkiiyo daallanoo intaasoo dhan isa soo dhibay haddana ilmo aad u kulul oo ay adag tahayba in la fadhiisiiyaa inuu maalin kasta haddana kaa la dhaqmaa waa dhib cusub laakiin iyana waxaan leeyahay camalkiina aakhire ku raadsada dulqaadka iyo patience-ka muujisaan ee aad qof muslima u dalqaadato ilmo yari adigoo dantiisa iyo wanaaggiisa ka shaqaynayo diin baraya waa wax janno lagu helo waana waxa uu nebigu u tilmaamaya waxaa idinku khayr badan kii qur-aan bartay ee baray in badanna isxasuusiya oo xasuusnaada cibaadooyinka ugu fadli badan inuu qur-aan yahay waayo maad keligaa fadhiyi karteen oo intaa in leg qur-aan maad akhriyi karteen intaad ilmaha qur-aanka u dhigayso mid kasta intuu saacad ee uu qur-aan akhrinaya ama soo subcinaya ama soo dadaalaya ajarkiisii ajar la mida baad leedahay iyadoo aad og tahay inuu nebigu yidhi alif laam mim xaraf maaha alifna waa xaraf laamna waa xaraf mimna waa xaraf idan macallimiintana waxaan leeyahay waa qaab janno loo gale eh aan jannadaasi xoogsanno oo dadaalkaasi badinno erayga ugu dambeeyana waxaan leeyahay dhallinyarada dhallinyaray may maqlaysaan horta ma lay maqlayaa war dhallinyaro oo guys war ma lay maqlayaa idinkaan idinla hadlaya dhallinyarada waxaan ka rabaa kow iskuulka inay arday fiican ku noqdaan mar labaad qur-aankana inay arday fiican ku noqdaan dhallinyarada waxaan ka rabaa waxa weeyaan inaad noqoto qof soomaalinimo matali kara soomaalinimadu waa wax lagu faano wax laga faano maaha soomaalinimadan soo gaadhnay waxay wax lagu faano ee wax laga faano maaha inaad identity-giina muujin kartaan oo muslim noqon kartaan qur-aankiina barataan diintiina barataan iskuulkiina iyo waxbarashadiina kalena barataan inta malcaamadda timaada waxaan rabaa iskuulkana inay number 1 noqdaan oo ay muujiyaan inuu qur-aanku waxtar leeyahay iskuulkana ay dadku noqdaan malcaamaddana ay ku noqdaan dhallinyaro waan idinku bogaadinayaa inaa
iskuul dhigataan waqti dheeraadana aa ku bixisaan inaad qur-aankiina barataan inaad diintiina barataan macallimiinta hal shay baan rabaa iyaga inaan ugu daro oo ah qur-aanka in la barto waa muhim waxaase ka sii muhiimsan fardulcaynka in la barto taa waxaan uga jeedaa dhaqankeennii malcaamadii hore wuxuu ahaan jiray in qofkan qur-aankuun loo akhriyo loogu dadaalo loogu celceliyo laakiin halkan aynu joogno waxaa ka sii muhiimsan qofkan in fardulcaynka waxyaabaha berri markuu koro waajibaadka ku noqonaya inuu qofku barto oo ah arkaanul iimaankiisii oo ah arkaanul islaamkii oo ah salaadiya sidii u saxan lahaa oo ah waxaasiya u baahan inuu ilmuhu si kooban uu helo si kooban oo aan balballaadhnayn daliillo badanna wadanin ee kooban isla markaana xataa hadday noqon karto sheeko iyo su'aal iyo wax isweydiin qur-aanka waa aragteenoo ilaahay wuxuu kaga warramayaa shimbir baa laynooga warramay quraanjo warkeed baa laga warramay bacuudaa laga warramay carruurtu waxyaabaha ugu badan ay jeceshay waxa weeyaan qisaska marka in malcaamaddu maalan maalintii 5 daqiiqo oo sheeko ay yeelato kale ama 5 daqiiqo arkaanuliimaan la dhigo maalin kasta 5 daqiiq dhammaantood ay ku wada dhigtaan waxaan uga jeedaa in macallinku inuu dareemo macallin qur-aankii Soomaaliya intuu dhigi jiro qura inaanu mas'uul ka ahayn inuu mas'uul ka yahay halka kan inuu dhigo ilmaha kan sidoo muslim toosan u noqon lahaa oo quraanka xifdigiisa waxa ka muhiimsan waajibaadka cayniga ana in si fudud ilmaha loo bari karo waxaan ku soo koobayaa waa maalin fantasiya ama in la isu yimaado oo la muujiyo farxad oo la muujiyo in quraanku wax weyn yahay oo la muujiyo malcaamadii in la xidhayay oo la muujiyo waa laga yaabaa waalidkoo kale inay boring ku noqoto uu daalan yahay laakiin wax weyn bay ilmaha u samaynaysaa inuu oslo dhan wixii ilma joogay intay isu yimaadaan la maamuuso oo la yidhaaho qur-aankii baynu xidhaynaa wax weyn bay u samaynaysaa waa laga yaabaa adigu inaad tidhaahdo ilaa saaka wadaadadu 2 saacadood bay halkaynu ku hayeen waa soo fadhidaan wax macnaaro badanna may sheegin waa dhab laakiin waxaynu isugu nimi inaynu tusinno ilmaheenna waxaanaynu qabanay wax weyn inuu yahay wax mudan in la isku bogaadiyo wax mudan in ay dareemaan inay camal qabteen qofka bini aadamka ay markuu wax qabto thankisku wax badan buu taraa waad mahadsantaydu erayga tashjiic ah wax badan buu taraa waxaan oo dhan dantaynu ka leenahay waxa weeyaan inaynu dhiiri gelino ilmaheenna oo u tilmaamno waxay sanadka wadeen inuu ahaa wax soo beautiful ah wax qurux badan wax maamuus mudan wax la isku yimaado wax macallimiintu ka hadasho wax masaajidku ka hadlo wax waalidku ka hadlo wax dadoo dhamay way yimaadaan oo saarayn maayo in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya ma dayaco kuwa samaha sameeya xoogooda alla subxaanahu wa tacaala haddaynu si caajisno isnaano imsu baynu soo wadnay uniyo imsaad soo waday waa uun meesha ay ka bilaamayso jabku iyo dhibtu uu ka bilaamayo wallahu aclam billahi tawfiiq